qabaa'ilka Soomaaliya oo dhammaantood way adeegsadeen Ethiopia iyo Kenya way adeegsadeen yaa waaye reerka aan Ethiopia soo adeegsan tell me yaawe yaan mingisto soo adeegsan yaan meel soo adeegsan yaan hurka ka soo qaadan si qarankii Soomaaliyeed loo burburiyo yaa waaye Soomaalida waa dambiile yaalbaana markaasaan waxaan ku darsanay inta shir laynoo qabto in layna yiraahdo see xubnaha u kala qaybsanaa maanta waxaan akhrinayay joornaalka qosol oo oy gobol nin jooga oo madaxa wuxuu leeyahay dawlad Soomaaliyeed ma dhacayso mana sugnaanayso reerka iyagu haddaanay intaa helin. What the hell you are talking about? maxay tahay reerka iyagu haddaanay tahay dambiilaba tahay xukun waxaad ku xukuman tahay in lagu xukumo maxkamad baad saaran tahay qaran Soomaaliyeed baad burburisay ummad baad baabi'isay jiil baad baraha ku daadisay qaxooti baad malaayiin ka dhigtay gaalaad malaayiin ka dhigtay yaa ka dhigay you not other one intay Soomaali iska dishay iyo inta Ethiopia ka dishay yaa badan Soomaali intay dishaa badan Soomaali intay laysaa badan Soomaali intay balaayo ku soo hogaamisaa badan dalkeeni muxuu la baaba'san yahay qaar anaga kamida $500 ay dalkooda ku iibsadaan qaar anaga kamida magac baa lagu yeelay ku iibsadaan dalkooda qabaa'il baa ku taageera kaas kaligiisna ma iibsadeen haddii aan qabaa'il ku taageerin miyuuna iibsan lahaa kaligiisna gadan lahaa suuqa ma naga soo gadan lahaa dad la gatay baan nahay la iibsaday suuqa waliba ugu raqiisan adduunka lagu iibsaday and still we are talking about qol baan galaynaa markaas oo reer hebel isu keena walaalayaal dawlad la'aan bay dhaantaa annagu waxaan nahay jiilkii ku soo koray oo ku awayman ka dambayna odayaasha naga horeeyayna waa naga horeeyayna way soo arkeen waxaanu aragnay dawladnimo iyo macaanka ay leedahay saas darteed baan waxaan meesha ordaya iyo waxaan socda magacay doonaan ha sheegtaan diin ha sheegtaan islaam ha sheegtaan wax kale ha sheegtaan ayaanan ka aqbalahayn dawlad la'aan iyo qaran la'aan iyo ummadnimo la'aan wada jirta baan wax ku keenaynaa kana ka aqbalmin. I'm not going to accept that. dawlad xataa daciifa baa nooga roon oo qaran ah oo ummadnimo ah anigu naftaydan tusaale ka soo qaadaya wanaaga ay lahayd dawladnimo iyo qarannimo dalkayga markaan joogay 1972 tusaale yar haddaan soo qaato naftayda that is example way tuuladeedii aan ku dhashay qandala la yiraahdo gobolka bari ee Soomaaliya ka mid tahay waxay ka fogtahay caasimadda Soomaaliya 2,000 kilomitir bay ka fogtahay oo u jirtaa tuuladaas magaaladaas degmadaas yarta ah ee populationkeedu 10,000 aanu markaas ka badnayn 1967 68 69 70 ayaan elementaryga ku dhigtay waxaa ku yaala cusbitaalkii yaraa waxaa ku yaala police stationkii waxaa ku yaala iskuulkii waxa igu yaalay biyihii waan ku cabayay waxa igu imanaysay warqadda walaalkay uu ka soo diro Europe salkeeda uu ka soo diro qandala baan ku helay konton sana laga joogaa maanta Hargeysa cidna ma ku diri kartaa warqad post office ma ku diri kartaa boosaas ma ku diri kartaa qofna warqad waa simple thing service oo dawladnimo leedahay waa very simple service guryaha waxa idinku soo wada dhaca waraaqa idinku soo wada dhaca jeeg baa ii soo dhacay biil baa ii soo dhacay kana ii yimi ma qiimaynaysaan arrimahaas waxa ay leedahay because dawladnimo iyo qaran baa jira meesha nidaam baa jira system baa jira keenina waan burburinaynaa ma rabno inaan samayno ma rabno inuu jiro waxaan ilaalinaynaa traffic light baan ilaalinaynaa wadamada kale waxaan ilaalinaynaa traffic light-ka stop waa istaagaynaa innaga soo maaha dhiigaan ku tubanaynaa qaliilkan ku tubanaynaa dulmigaan ku tubanaynaa baba bina dalkeena waa duugayna isagoo nool baan duugaynaa ma ogolin inaan is ogolaano ma ogolin aan ku wada noolaano magaalada aan ku wada noolaano ma ogolin kuwa hadda ku dagaalamaya Soomaaliya ku dagaalamaya ee maalin walba oranaya waxaan ugu shaqaysanaya
United Nation iyo organizationno iyo dullaaliin adduunka ka kala yimi meel kasta habar kasta wayna baayacaysa habar kasta wayna baayacaysa adduunka joogta mujrim kasta adduunka jooga Soomaalidu baayacaya maanta wax kasta iyaga soo shaqo tagaan kii shaqo waay waxa weey rida caatada ah inta caatowday oo caatan noqotay ba araxdeeda waxa taabanaya mid kasto aan shilin haysan oo farmadow araxdu saa u taabanaya wuxuu leeyahay neefkan ma gata shilin ma haysto hal shilin iskuma furto laakiin waxa kan caata say u noqotay ayuu la holinaya inaga waxa ina holinaya cid kasta inuu madax noqdo Soomaaliya waxa holinaya nin kasta mid kasta suuq joog ah oo kuwii ahayd xabsiga in lagu wada guro ama ummadda laga wada qabto meel laga istaajiyo bay ahayd waxa ma doonaya maanta wasiiro inay noqdaan dawladda inay noqdaan oo nagu baayactamaan magac Soomaaliyeed ku baayactamaan annagana waa u sacabtumaynaa xafladaan u qabanaynaa lacagaan siinaynaa marka qaran baan meesha ku haysanay iyadoo saasa waa in la saxaa marka in la burburiyo maaha in la saxo bay ahayd ma in la burburiyo oo aan konton sano dib u noqdo oo aan boostada qandara ay ugu iimaanaysay maanta ay noqoto caasimadii dhamayd la idin sheegayo it's nothing wax ka jira ma jiraan muqdisho waad maqli jirteen ma tagteen annaga tagnay weydiiyo waagay jirtay ma jirto magaalo la yiraahdo muqdisho ma jirto waa magac xaafadaad maqashaan warshada baastada boondheere hodon digfeeragteeda wax jira ma jiraan waa dambas way yaa dambas ka dhigay kuwa hadda jooga waxba looguma hayo Soomaali kitaabka Ilaahay wax looguma hayo dad tuuga waxba looguma hayo dawladnimo looma hayo qarannimo looma hayo dad tuuga waxba lagu soo gaareen looma hayo iyo kuwa taageeraya dabana shaqeynaya u saabtumaya PhD holders masters ba waxay u saabtumayaan juhalo wadankoodii baabi'inaya iyagiiba bariyayaan iyagiiba tuugayaan iyagiiba la safiir iga dhig wasiir iga dhig hebel iga dhig muxuu ka dhigaa his nonsense runtaan idin sheegay dadkiinan diasporada anigu waxaan idin leeyahay meesha aad joogtaan iyo dalalka aad ku nooshihiin iyo xaaladaha idin haysta iyo caruurtiina iyo ubadkiina gaangiska noqonaya iyo caruurtiina iskuul la'aanta ah iyo danihiina dayacan siya priority-ga anu taasaan idin leeyahay priority-ga siya caruurtiinan say iskuul u helaan af Soomaali say u baran lahaayeen taasaan idin kula talin dadkiina makhaayadaha fadhiya odayaasha makhaayadaha fadhiya oo siyaasadda Soomaaliya ka shaqeynaya oo caruurtooda gaangiska noqdeen that shame on you shame on you shame on you shame on you caruurtooda gaangiska noqotay oo aan ogeyn iskuulkay dhigtaan aan garanayn oo af Soomaali inay xataa ku hadlaan aan garanayn oo Starbucks intuu fadhiyo wasiir hebel ma la horeeyay oranaya iyo xisbi hebel halkaas uu ka dhaxay oranaya shame on you ka shaqay ilmaaga waajibkooda ka shaqay ilmaaga horta iyaga ka dhig dad muslima oo wadankan degan oo wax ku barta oo nafle oo Soomaaliya ka dhig anigu waxaan hal shay baan idin akidayaa dadka halka wax ka sugaysaan wax idin ma soo wadaan wallahi inaan wax idin soo wadi wallahi inaan idin ka fikirayay wallahi balaad ku dhimateen kuwa kale wadada soo hayaan saxaraha Liibiya ku dhinteen balaha Talyaaniga ku dhinteen qaxootiga Kenya ku jiraan malaayiin yaa ka fikiraya ii sheega kuwa gudaha ku jira ma ka fikirayaan kuwa xamar ku dagaalamaya ma ka fikirayaan isjeclaada walaalaatihiin dad isku meel ka yimid baatihiin walaalaatihiin malihin ummadda kaliya ee waxaan nahay Afrika homogeneous-ka isku jirta ee waxay ku kala duwan yihiin ayna jirin waxaan ku kala duwannahay aabbaha inuu ku dhalay anna aabbahay inuu dhalay maxaan dambi ku leeyahay aabbahay inuu dhalay maxaad dambi ku leedahay inuu aabbaha ku dhalay aqniya in aabbaha ku dhalay lagu dilo doorka maadaa doortay aabbaha maadaa doortay hooyada maadaa doortay qabiilka ka dhalanaysid hantida Soomaalida ee leedahay oo la idin sheegayo waa badan marka hore nin kasta oo Soomaaliya meel kasta oo dunida joogo waxaan u sheegayaa Soomaaliyay waxa aan ka maqanahay dawlad ka maqan tahay
shiikh ka maqan yahay shariif ka maqan yahay oday ka maqan yahay dhallinyaro ka maqan yahay wiilal ka maqan yihiin isha inta ma hayso berrigay haysaa isha duni uma baahni carab muu baahni afrikaan muu baahni caddiin uma baahni soomaaliya baddaa u jeedsana dhibka kaloo jira shacbiga soomaaliyeed gees kasta oo ka jooga qariidada soomaaliya meeshuu ka joogo xeebtaa ninka ka kalluumaysaayo soomaaliya 5 saacadood ma aadi karo ninka kalluumaysiga ee soomaaliyeed xeebtaan ma geli karo gobag waa ka sii waayey ninkii danaaquudahay waryaa dib u shuko waryaahay dib u shuko waryaahay dib u shuko waa soomaali oo hugsan cabi shisheeye soomaaliya iimaanka laa noo sugo iimaanka liidii sheegaana waa baddaas xaquuqda waddanka ka maqanna waa baddaas xaquuqda maqanna waa ninkaas oo kalluunka u taagan soomaaliyay kalluunka arka soomaaliyay badda arka soomaaliyay yaambada arka soomaaliyay caanaha arka caanaha bi caanaha ji caanaha li caanaha li caanaha wuu war caawa caanihii geel war caawa caanihii lo'ad war baddaanaa qabtaa ad dibadda igaga keenay toono miya war xoolahaana ilaaha ku sii dibadda adiga iga keenay caana bac ku jira miya